sanadku waa 1977 qaasin wuxuu saakay u soo dhaanshay reer ka kooban xaaskiisii Xaliime Xaaji Xuseen oo kundhaan uu isagu ula baxay iyo 6 carruur ah oo isku maqada ah ceelku durugsanaa awgii qaasin wuxuu soo gaaray kol ay harsimo tahay wuxuuse kala kulmay arrin uusan marnaba filanaynin oo ah dawladdii kacaanku inay saakay qafaalayso dadkii ceelka u soo arooray si looga hortago duulaankii xabashada qaasin isagoon la weydiin duruufihiisa ayaa inta indhaha laga xiray gaarigii kor loo saartay qaasin waa lala tegey oday ka badbaaday qafaalka oo toon yara durugsan ku dhuumanayay ayaa kol ay galabgaab tahay ceelka ku soo baxay durbaba wuxuu aqooday qaalinkii yaraa ee qaasin uu saakay reerka u soo dhaamiyey inta haamihii ka dhigay oo dhaanshay ayuu awrtiisa ku xiriiriyey wuuna fuliyey kolkii uu ag marayo qoyskii qaasin ayuu u yeedhay Xaliime Xaaji Xuseen waa xaaskii qaasine wuxuu yidhi kaale ratigan furo kolkii ay u timid ayuu uga warramay wixii maanta ceelka ka dhacay iyo in qaasin ay dawladdii kacaanku qafaalatay Xaliime Xaaji Xuseen waxay ku noqotay yaab iyo amakaag waxayse ku qasban tahay ratigeeda inay iska furato kolkii aaskii dumay ayay waxay heli kareen dabka saarteen carruurtii bay seexisay ayadase miyay hurda ka soo dhacaysaa dabadday u soo baxday waxayna ku calaacashay erye ay ka mid ahaayeen noloshii matan baa odaygiina tag baa warkacaanka tif qaaday show turaala yaraa yaase maqlaya oo aan ilaahay ka ahayn waaba gudcurkaan dumaye waxaad mooddaa in qof agteeda fadhiya ay la sheekaysanayso halkaa haynoo joogto qaybtii koowaad qisadii la magac baxday show turaala yaraa waa inoo qaybtii xigta haddii eebbaha weyni u raalli ka noqdo